الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضى casharkii u horeeyey waataynu uga hadalnay ducada iyo fadligeeda iyo aadaabteeda iyo awqaada loo baahan yahay qofka muslimka inuu aad ducada ugu dadaalo ay ka mid tahay bishan barakaysan ee hadda 10 awaakhirkeeda aan galnay iyo awqaadi kale aanu ku sheegnay xalaqadii ku xigtayna waxaan uga hadalnay ducooyinka quraanka ku soo arooray qaar ka mid ah iyo ducooyinka quraanku inay ducooyin jaamica khayr oo dhan jamciyay oo kulmiyay ay yihiin loona baahan qofka muslimka ah inuu aad u badiyo inuu ku ducaysto ducooyinka quraanka iyo kuwa nabiga ka sugnaaday sallallahu alayhi wa sallam waxaynu sii wadaynaa insha Allah ta'ala casharkii ku saabsanaa ducooyinka quraanka maantayna waxaynu sharxi doonaa ducooyinka quraanka ku soo arooray qaar ka mid ah ducooyinka quraanka ku soo arooray waxa kamid ah ducadii nabi Ibrahim alayhi salam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam ducadii nabi Ibrahim uu ku ducaysan jiray oo Ilaahay quraanka uu ku sheegay suurat shu'ara aayada 83 85 87 iyo 80 ila 89 laga gaarayo ducooyinkaas maxay ahaayeen waxa uu yiri nabi Ibrahim Ilaahay soo ka xikaayoonaya rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وادعوين آد عظيم وقفك مسلم كالو بهيها إنه مرور بكد عيسته دعاء داس إلهي القرآن كوشيغي مارة خليل الرحمن وكد عيسن جري ربي هب لي حكما علماء waxay ku fasireen ay basiratan wa ilman ilmi iyo aqli aan ku kala sooco xalaasha iyo xaraamta aan ku kala sooco dadka is haysto mutakhasimiinta oo maaragtay is haysta kan xaq leh iyo kan xaq lahayn aan ku kala sooco waxa fiican iyo waxaan fiicnayn aan ku kala sooco xaq iyo baadilka ilaahu rabbi oo ihibe oo isii maaragtay ay aactini way ilaahu isii maaragtay حكما ربي هب لي حكما يعني وبصيرة حكمك waxa weeye qofka ilaahay inuu hibeeyo inuu kala garto waxa san iyo waxa xun inuu kala garto xalaasha iyo xaraamta xaqa iyo baadilka markii maxkamad uu kala xukminayo laba qof wax isku haysta hatta bayna awlaadi hatta gurigiisa in ilaahay uu waafajiyo mar walba sawaabka ayuu ku ducaysanaya nabi ilaahi Ibrahim alayhi salaam marka waa duca runtii aad iyo aad cadiim u ah ilaahu maaragtay sadidni itoosi oo xaqa igu shud oo ma adigu ihag weeye ilaahu adigu ihago hanuuni mar walba xaqa ilaahu igu hanuuni oo maaragtay weeye ma wa alhiqni bis salihin ilaahu ihaleelsi kuwii wanaagsana kuwa wanaagsanaa waa nabiyada ilaahay ka horeeyay waa culimada waa malaa'ikta ilaahay min salihin bay kamid tahay waa shuhadada dadka wanaagsan ilaahay oo haleelsi macnaheedu ma ahay markaan dhinto kaliya ma ahane hatta wax walba oo ay saalixiinta sameyn jireen oo wanaaga oo ilaahu igu haleelsi amalka saalixa ay sameyn jireen ilaahu haleelsi oo ilaahu thawaabkii ajirka ay siin jirtay ilaahu haleelsi oo ilaahu markaan dhinto meeshii wanaagsan ayaga adgeysay ilaahu igeey oo ilaahu aakhira markaad soo saaraysid dadka soo saaraysid ilaahu iyaga macooda igu soo saar alhiqni bis salihin saas way macnaheedu الحقن إله كوا وناكسين إهلالسيو خير والبو أي سمين جرين أدونك iyo wanaaga ay ku dhinteen oo maartay khaatimada wanaagsanah iyo aakhira markii la soo xashirinayo ilaahu mar walba kuwaas wanaagsan ee haleelsi waj'al li lisana sidqin fil aakhirin ilaahay oo arab wanaagsan iga yeel maartay kuwa naga dambeeya oo amaan wanaagsan ay nagu amaanaan qofka amaanta wanaagsan lagu amaano macnaheedu waxa weeye qof khayr sameeyay ilaahna uu ajiibay ducada nabi Ibrahim ila maantay
khalaa'iqda adduunka joogta xataa bimukhtalif diimahooda kala gedisan nabiyullaahi ibraahim aad iyo aad bay u ixtiraamaan oo khayr bay ku sheegaan nebiguna waatuu yidhi almuslimuuna shuhadaau llahi fi lardi muslimiintu qofka hadday dhan qofka waa fiican yahayn insha allah fiicnaantaas wajabat buu yidhi nebigu way u dhawoobaysaa hadday dhan waa qof xunna xumaantaasaa u dhawoobaysaa marka nabiyullaahi ibraahim ilaahay wuxuu ka baryaa subxaanahu wa tacaala in ilaahay uga yeelo maaragtay ammaan wanaagsan dadka ka dambeeya ilaahayna waa uga yeelay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu noogu sheegay ina ibraahiima kaana ummad buu ahaa lagu daydo ilaahayna ummadda nebi maxamed iyo ummaddiisa wuxuu amray inay ku daydaan khayrka uga daydaan ammaan intaa ka badan hada ma jirto ducadii marka wuu sii waday nabiyullaahi ibraahim wuxuu yihi wajcalnii min warathati jannati naciim ilaahayow iga yeel kuwa dhaxlaya jannada barwaaqada badan ee naciimka ah min ahli ljanna ilaahu iga yeel kuwa aad dhaxalsiinaysid jannada ilaahu iga yeel waa jannadii ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala fi suurati maryam tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kana taqiya jannadii ilaahay markuu tilmaamaheedii quruxda badnaa soo sheegay ayuu wixii tilka aljanna taas waa jannada aanu dhaxalsiin doona alatii nuurisu min cibaadina addoommadayada kuwee dhaxalsiinayna man kana taqiyan kuwa ilaahay ka cabsan jiray marka nabiyullaahi ibraahim wuxuu leeyahay wajcalnii min warathati ilaahu iga yeel kuwa dhaxlaya jannati naciim si aan ugu raaxaysto oo atanacamu biha walaa tukhsini tana ducadana kasii weyn iyaduna walaa tukhsinii yowma yubcathuun ilaahu ha i hoojin oo ha halaagin maalinta maaragtay dadka lasoo saarayo waa maalinta qiyaamaha ee khatarta badan ay jirto oo naartii jahannama ay halkan soo burqanayso oo ay dadka ay rabto inay kusoo farabaxsato malaa'igtu ay xoog u hayaan oo dadka maaragtay qoraxda la soo dhaweynayo oo dadka la xisaabin doono maalintaas ilaahu ay hoojin buu yiri nabi ibraahim oo khaliilur rahmaan ah oo ilaahay uu quraan ku yiri wa ibraahim alladhi waffa macnaheedu wax walba oo ilaahay u amray wuu oofiyay xataa wiilkaagi gowrac markii la yiri waa tuu gowracay oo isku dayay inuu gowraco ilaa markii dambe ilaahay uu furtay subxaanahu wa tacaala marka nabiyullaahi ibraahim baa wuxuu leeyahay ilaahu hay hoojin inagu xageen joognaa marka ilaahu hay hoojin maalinta dadka la soo saarayo hay fadeexayn amaam al-khalaa'iqda hortooda hay u fadeexayn buu leeyahay nabiyullaahi ibraahim nafsi xataa waa isaga le markay dadku ay u tagaan oo intay maalinta maaragtay qoraxda markay soo dhaw dadku ay aad u walaahoobaan u rafaadaan waa iyaga nabiyada ilaahay u tagayo intay kasoo bilaabaan aadam mid walba wuxuu leeyahay nafsi ayuu dhahayaa ilaa markii dambe nebi maxamed uu sujuudo oo ilaahay uu baryo oo ilaahay uu ka aqbalo shafaacadiisa marka nabiyullaahi ibraahim wuxuu yiri walaa tukhzini ilaahu hay hoojini yawma yubcathuun maalinta dadka la soo saari doono yawm alqiyaamaha yawma laa yanfac maalintii buu sii sifaynaya tilmaamaya maalintaas qabiilkaaga wax ma ku tari doonaa tolow caruurtaada wax ma ku tari doonaan tolow yaa lacagtaada iyo maalkaaga iyo xoolahaaga wax ma ku tarayaan jaahaagii aad lahayd iyo madaxtinimadii iyo boqornimadii iyo ogaasnimadii iyo wax ma ku tarayaan maya wuxuu yiri nabiyullaahi ibraahim yawma maalintaas dadka la soo saarayo laa yanfacu maal wax ma taro walaa banun caruurna wax ma taraan oo kuma difaaci karaan ilaa man ata allaha ilaahayo waxaa keliyo anfacaya maalintaas yaa qofkii ilaahay ula yimaado biqalbin saliim qalbi nabadgalay culimmadu waxay ku fasireen qalbi ka nabadgalay min ashubuhaati washahawaati almuxarama qalbi ka nabadgalay waxyaalaha qalbiga kusoo dariyo shubahaadka ah oo maaragtay amraadul quluubta ah iyo shahawaadka macaasida qof maaragtay inuu waxado inuu wax caayo inuu wax dhaco inuu sinaysto inuu waxyaalahaas oo dhan qalbi ka nabadgalay ayaa maalinta badbaadiyay marka ducadaas runtii waa duco aad iyo aad u wanaagsan oo u fadli badan nabiyullaahi ibraahim khaliilur rahmaan ilaahay uu ku bari jiray subxaanahu wa tacaala ina anaguna aanu ilaahay ku barino intaan gacmaha kor u taagan aanu ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ku barino gacmaha u horsano waa duco aad iyo aad runtii aad u wanaagsan oo maaragtay fadligeeda ay leedahay iyo kelmadaha wanaagsan ee uu doortay nabiyullaahi ibraahim sida ilaahay noo sheegay rabbi hab lii xukman waalxiqnii bisaalixiin wajcalii lisaana sidqin fi laakhiriin wajcalnii min warathati jannati naciim markaa kadib haddana wuxuu yiri maaragtay aayad kadib aayadahaas buu wuxuu yiri walaa tukhzinii yawma yubcathuun yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim marka ducadaas
aynu ku ducaysano insha Allah waa ducooyinka wanaagsan ee Ilaahay Quraanka uu noogu sheegay Ilaahay inaan ku caabudno oo Ilaahay aan ku barino ducada labaad oo cashar ku soo qaadanayna maanta waxa weeye ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسورة الحشر آية التمنات إلهي سبحانه وتعالى وحو أمان يددك مؤمنين تا ما ركتي أو جعل ولا لهود أيو أمان يا واحد كدو عيسانيسا ربنا اغفر لنا إله نودم بالآف ولإخواننا يا ولا الله يجي الذين سبقونا بالإيمان إيمان كنا جهر مري ودتك مؤمنين تنجهر ري إلى صحابتي إلى كوي إنك نجهر ري يا ولا تجعل في قلوبنا قلبي هيالي قلا حسد يا حمان يقيش للذين آمنوا إن أقبنا كوي إلهي رميي إله نجدين كو حقد iyo xumaan u qaba sida shiicada iyo firqada baadilka oo wax ka sheega saxaabadii nabiga Aisha wax ka sheega Muawiya wax ka sheega saxaabadii nabiga ay ka nabadgeli waayeen ilaahu kuwaas naga dhigin rabbiyo ilaahu kuwaas oo kale naga dhigin kuwa maaragtay dadkii diinta nabi maxamed ka soo naqliyay xiqdi u qaba ilaahu naga dhigin mu'miniinta oo dhan waa duca caama laga soo bilaabo saxaabadii ilaa mu'miniinta maanta jooga ilaahu kuwa maaragtay xiqdi u qaba iyo xasad iyo xumaan ilaahu naga dhigin rabbana rabbigayo ayaa ربنا ربك يو إنك أدو حتى رؤوف رحيم مد أطرة أدومدي سأون حريست آياتها مركز دعاءاتنا دعاء رمتي آد عظيم وآد أوي ولا تجعل في قلوبنا قلا يا قل يحسد إله لابت هذا هديه أو ما ركتي حتى ضدك مؤمنين تا ولا الله يجنجوه ريو صحابة دي تابعين تي أئمة وناكسناء ما ركتي إيو إلى إيمان مؤمنين تلتشوه إلهي وهنا قديم كوا ما ركتي قلوبته وهي حمان وهي مركا آياته دور وح أي كتيرته ميدك هذا وحوي الولاء بين المؤمنين إن ذاتك مؤمنين تا أي سكاشادان أو اسكو حرنادان أو اسكو كالميان يا أي تلماميسا مركي آتري قلبي ولالكي وحبا إله يلي معني هذا وحوي إنما المؤمنون إخوة وولاله مؤمنين تو ولاله يجا إسكالميسانية يا إيجا اسكو تيرسانانية إنه حمان إيا حقد إيا حسد وصوكا دحقال الأمر ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوينك وكدو عيسان جري وحا كميد أها وصل سخيمة قلبي إلهيو سيب سخيمة قلبي وحوية وقشك إيا حقدك إيا حسدك إيا وحيراصن إله قلبي كسيب حديثك ابن ماجه يا أبو داود يا أحمد يا غير كسباوري مركا وحا مهم قفك مسلم كأه إنه سنفتيسا dadka walaalihiisa muslimiinta kuwii hore iyo kuwa dambe midna inuu qalbigiisa wax xumaan ugu qaadin inuu noqdo mid cafiya dadka mu'miniinta nin buu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam maalin saxaabadiisa wuxuu ku yiri yatali'u alaykum rajulun min ahli janna waxaan ku soo bixi doona nin ahlu janna xadiiska imaam ahmed baa wariyay isna waa xadiis saxiixa ma aragtay isnaaduhu saxiix uu yahay nin ahlu janna ku soo bixi doona marka saxaabadii nin kamida ayaa ninkii raacay oo wuxuu yiri bal ninkan waxa uu jannada ku mutay soo ogaatay gurigiisii buu u tagay oo wuxuu yiri ma aragtay uu sheegtay uu marti galiyeeyo wuxuu rabaa inuu qisho fiiriyo ninkan caawa wuxuu sameyn doon marka ninkii waxa ma sameynayba amal zaa'id oo ka badan acmaasha muslim iska seexday wax saasa muusan sameyn hadda uu ninkii qisada u sheegnay wuxuu yiri aniga waxba ma aragtay dhib ima soo gaarin gurigiin laga soo cayrine nabiga saan ugu yiriyo inaad ahlu jannah tahay buu noo sheegayo marka waxaan rabay inaan ogaado camalka aad ku mudatay jannada markaas nabigu wuxuu yiri wallahi wax saad aragtay camal kale ma sameeyo laakiin mid baan aan ogahay buu yiri anu naftayda ogahay لا أبيت وفي نفسي شيء على أحد ما بريبو يرى أنا نفتيدا قفك مسلمين مركز يحاني مسلمين تلو أسكع فيها قفنا مصيح يدو قلبي وحمانا وجيرو ماركت مركا دعاءاتنا أينو كدو عيسنو قلبي أننا أينو وناق يعني مؤمنين توها أينو حقدي يحسد كان هلقا فوقادو دعوينك القرآن كسو عروري وحا كميد دعادي نبي الله آدم يا حواء ay ku ducaysteen markii ay shajaradii cuneen geedkii markay cuneen oo ay amarkii ilaahay khilaafeen ayay waxay dhaheen rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya rabbana rabbigayow zalamna waanu dhulminay
maxaan ku dulminay dalamna anfusana nafteena dulminay yani waan dulminay markaan kugu caasinay waxaan mudanaynaa maaragtay ciqaab marka nafteena dulminay way hadaba wa illam taghfir lana ila wadaadan adigu noo dhaafin wa tarhamna aadan noo naxariisanna lanakunanna waxaanu kamid noqonaynaa min al-khasiriin kuwa hoogi doono halaagsami doona maaragtay baanu kamid noqon doonaa maaragtay marka waa duca runtii maxay ku bilaabeen waxay ku bilaabeen oo ducadoodii ay ku iftitaaxeen i'tiraaf ay i'tiraafayaan in dambi uu ka dhacay ya oo waxay dhaheen ظلمنا معناه وعصينا إله وقوة عاصينا جيت كأترها عونين أيان عنا يا dadka qaarkood waxa laga cafi soo horta dambiga marka xataa qof aad dhahaysid ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo xataa binaadam marka dhahaysid cafi waxaasan sameeyay oo kugu gafay cafina dhahday horta dambigaaga inay i'tiraaftid way marka amaam Allah iyo waxay i'tiraafayaan dambiga ay galeen sayidul istighfar ducadii ahayd oo nabigu uu yiri ducooyinka iyada waxay u tahay boqor oo sayid u ah waxa ku jirtay markii qofku dhaho اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت آخر كذا كتري أبوء لك بنعمتك علي إله وحن اعترافي يعني نعموينك عدوك الذي ستفرها بضن وأبوء بذنبي حديث صحيح استغفار ماركتي سيد الاستغفار أدعية النبي كسرنا هذا ويصحيح البخاري وكترته أبوء بذنبي إله ذنبي جيجان اعترافيا إن ذنبي لا هي ما اعترافيا إله ربي وإيدم دافوي مرك نبي له آدم يا حواء سيدي وكلي اعترافيا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يعني وحوي هدانو هلين حريست هذا يدم دافكاga هلكنا إله وان هلاك سمينا ساسو kale iyago yiri ay lamid marka ducadaasna in mar walba lagu ducaysto oo qofku waliba markuu ducooyinka uu bilaabayo uu ku bilaabo i'tiraaf rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wa ducooyinka jaamica ee quraan ku soo arooray ayay kamid tahay ambiyadii ilaahayna ay doorteen maaragtay nabi ilaahay aadam alayhi salaam iyo xaaskiisa Hawa ducooyinka quraan ku soo arooray waxa kamid ah nabi ilaahay Zakariya alayhi salaam waxa uu ahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaad masin ila uu ka duqoobay uu duq ka noqday waatuu kafaala qaaday Maryam Ciisa waatuu kafaala qaaday Maryam marka waxay ku cibaadeysan jirtay mihraabka meesha lagu ay ku cibaadeysan jireen ayay ku cibaadeysan jirtay mar walba uu soo galo nabi ilaahay Ibrahim nabi ilaahay Zakariya wuxuu arkaa gabadhan oo cunaysa fawaakih khudrawaat maaragtay fruit ilaahay uu siiyay subhanahu wa ta'ala waliba mufassiriintu waxay dhaheen waqtiga shitaha sayfka la yiraahdo oo kulaylaha ah samarka ingiriiska lagu dhaho kulaylaha ah ayay waxay cunaysaa fruit ka soo baxa maaragtay waqtiga qaboobaha ah cagsigana sidoo kale waqti shitaab uu soo galaya oo winter ah qaboobaha waqtiga ah mase waxay haysataa cunaysaa fruitka waqtiyada kulaylaha la heli jiray halkaas wuxuu arkay معجزة إنها تهاي وحكرات درامي إلهي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إنه يهي يا مالكاسو مركا وحكاها لي تشجيع يبورين إن إلهي سبحانه وتعالى قود عن سيي ماشا كو أرزاقي واتي إلهي كلما دخل عليها وجد عندها رزق مارت قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إلهي كو أرزاقي قود أسماركتي risqigaas oo waliba risqigi waqtiga kuleelaha kaliya la heli jiray maaragtay waqtiga qababaha siiyay waqti qababaha maaragtay kuleelaha qababaha kaliya waqti tii la heli jiray waqti kuleelaha siiyay ilaahaas wax walba uu awooda markaas uu gacanta u horsaday wuxuu yiri suurata Ali Imran aayadda 38 ayuu marka ilaahay u bariyay subhanahu wa ta'ala isagoo oo markuu u soo galay oo uu arkay gabadhaas ilaahay waxa uu siiyay أيوه وحكو دعايستي دعاء عظيم كأه وإلهي أوليه ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا ربي هب لي معنيه الوحوي أعطيني أرزقني إله هو أرزاق هبة وحل الأسيدة هبة ووحا قفك لسيو إيضا وح بدل عن لغا قادا يا قفك وانكوه بي وحن قاضو بلا بدل إله ربي وإحسان كاغ faraha badan
iyo naxariistaada ilaahu ii hibe dhurriya haddana dhurriyad oo iskamuusan idlaaqina wuu qayday wixii dhurriyatan tayiba dhurriyadu wanaagsano saalixiin ah oo dariiqaaga raacada ilaahu igu arzaaq innaka adigu rabbiyo waxa tahay samiicu ducaa kii ducada maqla suurat ali cimraan aayad 38 ayuu ilaahay ku sheegay ducadaas qayimka nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi zakariya oo ilaahay ku bariyay oo ku tusinaysa in uusan ilaahay ka quusan naxariistiisa qofka muslimkaana loo baahan yahay mar walba inuusan ka quusan ilaahay naxariistiisa rabbi baad leedahay qafuurur rahiim ah dambi kasto ka dhaca weliga ha quusan shaydaanku wuxuu isku dayayaa inaa inta quusatid adan ilaahay u toobad keenin haddaad maaragtay faqri kugu yimaado rabbi baa leedahay kariim ah ilaahay bari haddii jira kugu timaado rabbi baa leedahay shaafi ah ilaahay bari ducooyinka nabiyullaahi zakariya suuratul anbiya ilaahay ku sheegay waxa kamid ah oo yiri rabbi la tadarni fardan wa anta khayrul warithin markaas ilaahay waxa uu yiri subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu wa nu'ajibna markuu gacmaha noo horsaday nabiyullaahi zakariya oo maaragtay haweentiisuna ma dhasho ahayd waa yeelna ay isla noqdeen ilaahay wuxuu yiri fastajabna lahu wa nu'ajibna nabiyullaahi wa nu'ajibna ducadii una weydiistay wa wahabna lahu waxaan u hibayno siina yaxya حتى مقع إلهي بويلك سأبحي وأصلحنا له زوجدي سأيان إصلاحنا وانو إصلاحنا وحوي عقيم هدايا هايد وحان كدقنا مثل ليس أيان كدقنا مركا إنهم إلهي مركا وعلي صابت إلهي الدعاء وأقبلي إنهم وحي أهاي نبي الله زكريا يقويسكي سبا كانوا وحي أهاي يسارعون في الخيرات كوا خيرات كأدقدقة كوا إلهي سبحانه وتعالى طاعدي سأدقدقة إلهي سبحانه وتعالى قفكي مركا udegdega ilaahay subhanahu wa ta'ala marka fi raxa aad ku jirtid barwaaqada aad ku jirtid maaragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala maqla oo ilaahay ateeca oo ilaahay ku xirnaada ilaahay fi waqti shidda ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ajiibaya ilaahay markaas ku ajiibaya marka ducadaasna waa duca aad iyo aad qiimo ah waliba maaragtay ducooyinka quraanka daa u fiirsatid markii awlaad la dalbanayo rabbi habli baalda rabbi habli ilaahu ihibe laana dhurriyadu waa hiba min Allah subhanahu wa ta'ala وهبة من الله مركا الفاظ دورنيسا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إلهي مركا ذرية ويديسني سنة يقول إلهي كو أرزاق ذرية طيبة وأن هذا وبال عليك أديك أن عقاب كو نقون الدنيا آخرة أدون كان كو إن الدوك ستيد وأتكو فرحديد نقضو كو مقلو بارين آخرنا كو ماركتي هدي سقيران كو شفاعة هدي أي مؤمنين كل إنتان أركتان أي نقضان وناكسن إلهي كبرس مركا دي ما تتكدم لكوسو الدعية مارك إلهي سبحانه وتعالى مركا دعاء داس أي نكو دعاء سنو دعاء داس إلهي سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم نبي الله زكريا وكو إلهامي إسنا إلهي وكبريي كدمنا إلهي وأجيبي ويري فاستجبنا له أيننا مارك تنقنك إلهي سبحانه وتعالى خير كأودقدقة ومارك تطاعد إلهي أودقدقة سي إلهي أنو أقبله سبحانه وتعالى دعاء كل حكته وأن دورنا وحويه ودعاء نبي الله دعاء أدعية وحن دورنا أدعية عباد الرحمن دعوين كودي عباد الرحمن دعوين كودي وحاكمدها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا ربنا ربك يو هب لنا إله نوهبه ونصيه من أزواجنا إله نوغدق اجعل لنا هب لنا أي اجعل لنا إله نوغدق من أزواجنا حاسس كيغ وذرياتنا أولاد يد يا قرة أعين كوا إندها يغو أي كفرحان وأي كدوك سدان marka aragna wanaagooda iyo khayrkooda iyo taacadooda waj'alna ilaahu nagaya lil muttaqiina imaaman mid ay dadka muttaqiinta ay ku daydaano imaam u noqda ilaahu nagaya marka ducadan waa ducadii labaad way ducooyin badan ba ma aragtay aakhir suurat furqaan ilaahay uu ku sheegay cibaadu rahmaan adoomadiisa ilaahay uu ku tilmaamay adoomadii rahmaanka iyadoo adooma ilaahay la yahay buu ilaahay dana wuxuu u idaafeeyay inay cibaadu rahmaan yihiin ducooyin badan bay marka oo dhamaantood iyagu wada wanaagsan
ayaa kamid ah ducooyinkoodii marka midaan baa kamid ah aayadan lagu sheegay suurada furqaan 74 aayad 74 ilaahay inaad weydiisatay subxaanahu wa tacaala dhurriya nabiga zakariyana watuu weydiistay dhurriyadaas oo mid khayr qabta ah saalixiin ah kuwa saalixiin ah dhurriyada marka waxa soo galis kuwa dhashid iyo kuwa sii dhalaan iyo kuwa sii dhalaan iyo kuwa sii dhalaan baa soo galay ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يا ذرياتنا أو هل كواحد كجرنسا كوا عندنا كوا يصير دلان كوا يصير دلان كوا يصير دلان ذرية داديوي إله واحد نوال إكتكوا أن كوين دوكس إنه هو ناكسن أو صالحين يا أو قف كمؤمن كأمركو أركو الميسو وناكسن أو بارئة أو صالحة أو مقلية أو إلهينا مقلية إلهي أجيبية وفرحية فرح أيو فرحية يا ولذلك حديث صحيح مسلم كجري نبي صلى الله عليه وسلم waxa uu ku sheegay qofka waalidka ah yurfa'u alwalidu fil janna yuqalu anna hada martabad sara loo qaadayo qofka mu'minka markaas u dhaxaya martabadan xagee iiga sugnaatay martabadan camalkaygu ma gaarsiisanayn markaas lagu oranayaa bi istighfari waladika laka يا إمام وحوري حديث كاس إمام أحمد باوري أما حديث إمام مسلم وحوها قفك هدور انتو عمل كيسا وقايا ينقطع عمله يا مركز النبي وحو شيء إلا من ثلاث صدح ما هني صدح ذا واحد كميدا أو ولد صالح يدعو له حديث كإمام مسلم باوري كيدا بنا إمام أحمد أياوري وأنا درجة سنة حسن مركز قفك مسلم كأنه كود داله إنه إلهي ويديستو أولاد صالحة ربنا هب لنا إله نوهبه ونسيه يا أولادها صالحة هذه مصلحة هذا ويه مجتمعنا مصلحة يسويه وضم بيقطع هذه بلاي ولا فجار أو فاسقين أي مدة أتكسو بيرسيد أدنى دم بيكوسو كذا يعني بلشدنا مشكلة بروبلم بيكوسو كذا يعني إله قوها ننسان إله يقو أرزاقه يا معناه وجعلنا للمتقين إماما معناه دوحويه إله نقدك أئمة الخير كوا خير كاللوغة دايدو إله نقدكوي إله سيدي إمام وكفى السري ابن كثير أي اجعلنا أئمة في الخير يقتدى بنا كوا خير كاللوغة دايدو إله نقيلوي يا إله درجة سرنا قارسي إلى أن كان نقولنا كوا خير كاللوغة دايدو إلى إمامك صلاة مركو تكون يوالوغو دايدا سومان مركو فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد وكو دايدنا إمامك إمام مؤمنون أي كو دايدان خير كأوغا دايدان أي خير كستا عمل كستو صالحة عمل كستو برئة صدقها أهاتو صونها أهاتو الصدقها أهاتو الإحسان أهاتو وحول بقوة خير كاللوغة دايدو إلهي ونقيال مركز دعاء سواء دعاء رنتي يا وناكسن محايا لي هدي نقد قوة خير كاللوغة دايدو دعوة دادك قارس خير بعض وشيكتا ويكاقا دايدين أجر كي ضدك سميني عمل كاسو أرنب بعد هليسا يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه حديث إمام مسلم أوريه قفكي دتك خير ويره waxa uu leeyahay ajarka dadkii uu yeeray iyagoon laga nuqsaamin ajarkoodii ayuu wuxuu leeyahay isaguna ajar buu leeyahay ajarkoodii kale u dhigma ayuu leeyahay marka maanta dhanba waxa iska gurubsanaysaa xasanaad baad iska gurubsanaysaa hadaad khayrka dadka aad noqotid qof khayr dadka u sheego ay uga daydaan maaragtay marka ducadaasna waa min adciyatu cibaadu raxmaan ta iyada iyo kuwa ka dambeeyaba ha lagu ducaysto ducooyinka quraan ku soo arooray waxaa ka mid ah ducadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi yuusuf waati suurad dhan lagu sheegay qisadiisa isaga iyo walaalihiis wixii dhex maray aabihiis dhibtii nabiyullaahi yacquub soo gaartay markii dambe walaalihiis iyagoo rafaadsan isagoo boqorno waatuu xabsi galay waatuu naagtii boqorku ay damacday kadib waatii xabsi la geliyay dhibaatooyin badan baa nabigaa soo maray ilaa markii dambe isaga iyo qoyskiisii ilaahay uu kulmiyey isagoo boqor ah markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baryey ducadii waxaa ka mid ahayd أنت ولي أي ربنا ربك يو أنت ولي أديك ولي جيجا أنت ناصري وي كان يجر جارة أديك أدان ولي كو كو تير سنانيا وحقر يا مرك التوحيد الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين بعد نقول إنسا ما قفك كحريس قبيله أما حزبي أما وحنا عاس أنت ولي إله أدي ولي جيجا في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة
adiga ka maaragtay weligayga aan ku tiirsanaanayo ii gargaaraya oo i xiriirinaya tawaffanii musliman ilaahu i oofsa anoo muslim marka ilaahay wuxuu ka baryayaa xusna alkhaatima maadaama uu darajada gaaray oo ehelkiisa ilaah u keenay oo dhibaatooyinka ilaahay ka sama bixiyay oo uu boqor u noqday oo da'diisa ay weynaatay ayuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa xusnu alkhaatima ilaahay inuu ugu khatimo adduunyadan khaatimo wanaagsan ilaahay inuu ugu khatimo tawaffanii musliman ilaahay oo i oofsa anigoo muslim ah wa alhiqni bisaalihiin ilaahu i haleelsii kuwii wanaagsanaa adduunya aakhiraba adduunkana camalkii wanaagsanaa ay samayn jireen ilaahu mid sameeya iga dhig آخرنا إله إهلالسيو إلى صارو مع زمرتهم إقدقوا واحشرني معهم إلى سو حشريو إلى أساس بإله كدعاء سنية مركا ودعاء وناكسن قفك مسلم كان سيسب إنه مرول بكت جمان حتى سجود إله إنا كبريد اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة لأنه أعماشا وحكاك بآخرك واتو حديث نبي كل شيء قف بعمل وناكسن سمينية إلى مركا قدام بيسلي مشي سود واتو عمل وحو سمينية ماركتي أهل النار كمركز النار تقلية عكس كذا أول شيء قف ماركتي دنبيله أو دنبيه بدن سمينية أو عمل كأهل النار سمينية مركا قدام بيس أيو إلهي توبت كينية توبت إلهي كأقبلية مركز وحو قلية جنة مركا إن الدعاء نبي الله إبراهيم كدو عيستين مرول با نبي الله إبراهيم كدو عيستي أيا لوبا هي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ودعاء رنتي جمعسي أو جامعة وتان بلوغينا كسوشين دعويك القرآن كوا جامع وقاقابين لكن خير ودن أي جهد عدن وحو إقرار وحا كتير التوحيد استسلام إلهي واسكده بيو إيا موچن أو موچن باهديسة إيا براءة وكان نقون أيو مركو يري أنت ولي هذا ولي وحو بري كان نقون إلهي غيرك سبحانه وتعالى إيا سؤال إلهي ويديسان إلهي إن أكدل إسلامك أكدل وحسن الخاتمة يا مركاسو مارك إلهي سبحانه وتعالى كبرية دعاء ثقابا ولكن خير أردن جمع سوى سورة يوسف ماركتي آيات بقول إيوكو أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أدعية القرآن وحا كمدأة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا سورة الممتحنة آيات شناب إيو آيات معنى هذا كلاء وإلهي يجري ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سورة يونس آيات سيديتني يشناد لوضع آيات واسكو معا لوضع محيلين ربنا لا تجعلنا إله نجيين فتنة كفتنوبة أما أي فتنيان للذين كفروا كوا كفري ربنا لا تجعلنا إله نجيين فتنة للقوم الظالمين لو تفسير علماء وقفسرين مدينة تاي هنجيين كوا أي فتنة انتي فتنيان أي نوخصبان انتي نجا قالب نقضان أو أي نتشبيان انهزام أو نقول دعو أو يجونا أي نقول قصران نضحنا كون هذا حق أي كسو جيهين لما تشبيين وإلهي بأجر جاري لها إله هنجيلي waxay kala noqon kartaa ilaahu kuwa ku fitno gaalada dhaldhalaalkooda iyo waxa ay samaysteen iyo ilaahu iyagana hanaga yeelin iyadana way noqon kartaa labada macno way noqon kartaa marka ilaahay inaad ka badido si waqtigan hadda aanu ku jirno waa zamanu alfitna zamanu alfitna way waxa aad gaaladiiba maaragtay horumar iyo teknolojiya iyo la siiyay awlaadul muslimiin inay ku fitnoobaan ama qofka weyn xataa uu ku fitnoobo ayaa la arkaa marka ilaahay inaad ku baridid mar walba aad ahdid maaragtay rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ama rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa du'a aad u gaaban laakiin jaamica ku anfacaysana maaragtay in lagu ducaysto iyaduna aad u fiicantay ducada ku xigto aynu dooranayno insha Allah 10ka waxa weeye ducadii nabiilah Musa alayhi salam oo maxay ahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala fi surati Taha ayad 25 ayad 36 waxa uu yiri rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ilaahay markuu uu ku kalifay inuu rasuul u yahay oo ninkii khayrka darnaa ee ilaahnimada sheegtay fircoon uu diinta gaarsiiyo ayuu ilaahay wuxuu leeyahay ilaahu laabtayda waasici oo iimaanka ku waasici oo amalka saalixa ku waasici oo dulqaadnimada ku waasici oo sabirka ku waasici ya wayassir li amri ilaahu amarkaygana fududee qofkii ilaahay subhanahu wa ta'ala laabtiisa uu ku sharxo diinta islaamka arrinkiisana waxa arrinkiisa oo dhan ilaahay u fududeeyo يا
wax u haray oo wanaaga ma jiro ya waxa u haray rabbi shrah li sadri ya qof walba muslim oo u baahan yahay marka aad diinta dadka u sheegaysid marka dadka wax baraysid marka aad ducaysanaysid waad u baahantay ilaahay inuu ku qalbigaaga ku waasiciyo iimaanka uu ku dajiyo amarkaagana ilaahay uu sahlo subhanahu wa ta'ala ya nabigu wuxuu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna يا أديك إله مجرى واحد سهل كدك تدمهني وأنت أديكنا إله تجعل الحزن يعني الصعب واحد صعب كعلص أدق إذا شئت سهلا هدار سهل بكدك ما عرفتي حديثك صحيح ابن سني في عمل اليوم والليلة كوري إمام الباني السلسلة صحيحة أيوة كل شيء مركز دعاء قاون يدنا كد عيس سيبا مركز عادتك الدين تبريسيد إلهي سبحانه وتعالى إنه لابت هذا واسعيه أمرك أنا أفوزيه مركز دتك الدين تقول يريسيد مركز أي أمر خير أد سمينيسيد ويسر لي أمري إله أرن كي نفوزيه والدعاء جامعة وآدي وناك سموي دعوينك قرآنك وحا كميدة دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والدعاء أهل الكهف سورة الكهف آية التمناد سورة الكهف آية التمناد يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أهل الكهف وقرأنا سورة الكهف قصوينك أفرتها اللغة شيئي وقرآن كأن ميلك اللغة شيئين أي كمتها ذي القرنين يقير ينكي معركتي قصدي نبي الله خضر موسى دحمرتي نينكا kala u faanay beertiisa ugu faanay afarta qiso oo mid walba arin mushkilad jirta ay cilaajinayso tan marka waxay ahayd niman iimaankooda gaala kala soo cararay nin boqoro oo daalima oo dadka ku khasbi jiray diinta in xaqa inay ka tagaan oo midda baadilka ay qaataan waatay godka ay galeen halkaas ba ilaahay waxay ku bariyaan waxay leeyihiin rabbana rabbiga yow aatina nasi من لدنك أديك أكتاد رحمة نحريس إله نحريس أدنوجو نحريسنا يسدو أدنجا أستوري يسد كوا ظالمين تا قوم كيجا إن الرادينية يا وأدنجا بدبادين يسد إله نسي وهي لنا إله نو دياري من أمرنا أمر كيجا أردن رشدا مد هنونا كديك إله أرن كيجا أردن مد خير كوافق سن كديك يا وهي لنا من أمرنا رشدا وحوي أي اجعل عاقبتنا رشدا إله عربت يد الضم بمد هنوسن إله كديك أو نقصك حقا أو نوافتي خير كساس ويا معنا أو نفوذ ذي ربي وخيرك إن نقارنه مرك إلهي بيقدر بنا يعني حريص تيست إياه إن إلهي سبحانه وتعالى وخيرك أفوذ ذيه إلهي نوكي علي واتي أوسيحيي كدبنا أوصاري كدبنا أي صابحين يجو أو معركتي ضدكي أي إسبدلين وخيرك أي قاتين مرك الدعاء إيادنا هلود دعيستو ودعوينك قرانك جامعة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إله أرنك نحريس معركتي إله نحريس نسي نحريس إله وواسع رحمته وسعت من كل شيء إله نحريس سبحانه وتعالى وحكمه إنه توبتك وافتيو إله نحريس أودي سنة وحكمه إنه عافمات كسيو إله نحريس وحكمه إنه عدوغا كائلاليو إله نحريس وحكمه إنه رزق حلال كسيو إله نحريس وحكمه إنه ذرية هذا بارك عليه مركا ربنا آتنا من لدنك رحمة أكتر نحريس نغسيو نودي أرنك يقول إله ديار مد هنونسن أو خيرك كسوغان أو عاقبتي سهاجته أو سهلا إله ساس إله الغبري سبحانه وتعالى ودعوينك آتي قيمك وأرنتي دعوينك قرآنك وحكمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا أي يا ربنا ربي جاي واغفر لنا نضاف ذنوبنا ذنبية إذا أنسميني أدو أنت واقفينا مالين يهمين بواقفينا مركا دنبي داف وينو نقانا محيتها وإسرافنا إله نضاف إسراف كيغا في أمرنا إسرافكو وحو ليهي سيالك لقد سنبو قفك أقوي ماذا إسرافكو سيسا الإسراف وتجاوز الحد قفك أو حدودي سكت اللعبة أو دافوي مركا إسراف وحو نقون كرا إنا نفت هذا معاسي أسميسيد وإسراف وحو كلون نقون كرا إنا تكون إسرافتي وحيالها مباحة وحيالي مباحة إنا عنتد ومباح لكن هذا عنتدي انتاد فريق كبدي أدادسي وإسراف
يا ومجاوزة الحد حدكي مباحة آيات ضافت مركا إن المسرفين نواتوا إلهي مبذرين إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين إسراف ونوع من الإبذار وحوله لغتن توي مركا إلهي إنا ويدسنا دم ضاف إلهي إنه ضاف ذنوبتين إسراف كان بناء مدانا هلا وضب وقوبضنا ذنوبتين إنه بدنتاي حتى أن كتلابنه وحدود أن ضافنا وي بدنتاي مركا إنا وسورة آل عمران آيات بقول أفرتني تدبو ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتعقابا لكن وحي حنبارسنتي معنا وين إلهي هدو كا أقبله سبحانه وتعالى ذنبigaaga ku dhaafo waxyaalaha israafkaayo ka dhacayna Ilaahay uu ka dhaafo wax ku dhimano khayra miya harayba maarag casharka waxaan ku khatimaynaa insha Allah ta'ala ducooyinka quraanka ku soo arooray aynu wadnay casharkan maanta waxaan ku khatimaynaa ducadii imra'atu fir'aun mu'minada ahayd rumaysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dumarka sayidaadkana kamid ah nabiguna xataa uu sheegay fadligeeda quraankuna uu sheegayba ducadeeda waxa kamid ahayd suuratu tahriim aayada maaragtay aayada 11 ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku sheegay ducadeedaaso waxay tiri id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين نبي محمد أشيك باليري دتك أشيك إذ قالت مركي أي تري هوينتي فرعون حاسكيسي ربي بني لي عندك بيتا في الجنة ربي بني لي عندك بيتا في الجنة ربي يا ربي جيو ابني لي إله إيدس عندك عديك أكت هذا بيتا قري إيجادس علماء واحد مركي آيداس أي فسيريين اختارت الجار قبل الدار وحا أي دورتي جار وناكسن انت أيسن دارت أيسن دورا وسيوا أيساس ابني لي إله إيدس ما يسن دهين ابني لي بيتا عندك ما يسن دهين إله قري إيدس أكتال ما حيتري ابني لي عندك بيتا وحي صهر مريسي ماركتي إلهي أكتيس marka jaarkuna waxaan ognahay sidiisaba laba guri oo isku quality ah ayaa waxa laga yaabaa inay qiimahoodu kala qaalisan yihiin maxay ku kala qaalisoomayaan kana jaar wanaagsan ba ah kana jaar xun ba ah waad ogtiin xataa xaafadaha inay kala qaalisan yihiin waxyaalaha ay badan ku qaalisan waxa weeye xaafadana karaamkeeda iyo dhibkeeda badan tan waxa weeye dad wanaagsan oo aan dhib lahayn ayaa degan marka qofku jaarku waa aad muhiim u yahay in ilaahayna la weydiisto ila jaar wanaagsan iyo daabad wanaagsan iyo bayt wanaagsan way soo aroortay iyadana maaragtay marka ilaahay waxay weydiisatay subhanahu wa ta'ala inuu uga dhiso bayt agtiisa markaasay xagee jannada ilaahay uga dhiso fil janna عندك يا رحمن oo jannada ilaahu bayt iga dhis ya wanajini ilaahu iga badbaadi baytir fir'aun من فرعون إله يقبض بعدين وحوها آد طاقي أو بطشيس إيو معركتي عقاب كيسو ودتك مرسي أيو حانون بدنايين معركة أيوها ونجيني إله يقبض بعد من فرعون يقبض بعد يو عمل كحونه وسمين أيو إن أنا متكود إذا أنت نقضة أن كرعه إله يقبض بعدي ونجيني من فرعون وعمله ونجني إله إجابت بادي من القوم الظالمين قوم كظالمين تا ظلمي نفتو ذن الظلمي إلهين الشرك أنت اللي من الظلمي خلق إلهين الظلمي ومعركتي خلق إلهي أدون صدي وقار لاي قار معركتي وحياهين ريب بني إسرائيل ويلاش أي كدي اللي تشرين دومر كانوا إسكدين تشرين إله إجابت بادي marka ducadaas wanaagsan ee gabadha mu'minada ilaahay uu ku amaanay quraanka uu ku sheegay ilaahay inaynu ku barino subhanahu wa ta'ala id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna wanajjini min fir'auna wa 'amalihi wanajjini min alqawmi adh-dhalimin ducadaas iyaduna runtii waa duca aad qayim u ah oo loo baahan yahay inaynu ku dadaalno marka walaalayaal ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu tawfiiqdana waafajiyo إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا
وجلاء همومنا وأحزاننا إلهي وحن كبرنا إنه كدغ قرآنك كوي راعة أو كعمل فله oo xalaashiisa xalaashada waxyaalaha xaraamta uu kareebayna ka reebtoonaada ducooyinkaas quraanka ee jaamica ee ku soo aroorayna ha lagu dadaalo oo ilaahay ha lagu baryo iyaga iyo kuwa nabiga ka saxiixa ka sugnaadayba ilaahay waxaan ka baryaynaa tawfiiq inuu waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala fitanka dhacaya inuu ma dhahara minha wa ma batan ilaahay inuu naga badbaadiyo cudurrada socda ilaahay inuu inaga iyo inta muslimiinta ka badbaadiyo dambigeena iyo dambigii waalidkeenba ilaahay inuu dhaafo hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.